waxaa dhammaaday oo la dhammaystiray gurigii loogu talagalay in lagu hayo qoyskii ka koobnaa 14 qof ee isku faamilka ahaa ee xanuunsanaya qabay xagga dhimirka ee danyarta ahaa kuwaasi oo ku xidhxidhan geeda ku yaala deegaanka balli caraale ee gobolka daadmadheedh maxamuud waa wiilka keliya ka badqaba qoyska waxuu ka guddoomay furayaashii guriga guddoomiyihii isagu ka qayb qaatay islamarkaana lahaa shirkaddii dhistay gurigan oo uga mahad celiyey dadaalka ay sameeyeen isaga iyo intii garab istaagtay ilaahay dartii u soo caawisay anigu waxaan imika u taaganahayoon inaan gurigii hadda wareejiyo maxamuudow qabo fuura halkan aanu joogna waxa weeyaan gurigii dadka dhimirka loo dhisayey meesha waa magaalada Hargeysa xaafadda Maxamed Mooge guriga furayaashiisii waxaan ka wareejiyey Maxamuud Jaamac Cali mas'uulkii dhisayey guriga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii imika miyigii bay joogaan 14 qof ee dhimirka ka wada xanuunsanaya ee ilaahay imtixaanka ku salladay waa imtixaan dadkaas waxay u baahan yihiin gargaar joogto ah daaweyn daryeel iyo in la soo raro guriga la keeno marka dadkii hore uga qayb qaatay iyo kuwa aan ka qayb qaadanba waxaan ugu baaqayaa in ay dadka ka warhayaan dadkana waxay u baahan yihiin baaritaan rasmi ah wax xanuun hidaha raacay ilaa ka dhalan doona ayaa la ogaan karaa inuu la socdo ilaahay baa wax ogi waayo dadkii dabargoob ay ku dhow yihiin xanuunkuna waa xanuun hidaha la socda marka taana waan codsanaya qofkii khibradda lahow ila soo xidhiir lambarkii waa ku qoranay sidoo kale mas'uuliyiintii kala duwaneed ee iyagu ahaa dadkii ka qayb qaatay baaqi iyo sidii dadka loo caawin lahaa oo halkaasi ku sugnaa ayaa si dheer baaq ugu diray ummadda islaamka meel walbo ay joogaan gurigaasi wuu dhammaystiran yahay laakiin waa qaawan yahay wax allaale wax hoos yaala ma jiro taasna insha Allah waxaan ugu baaqayaa dadka islaamka meel joogaanba ayadana inay ka qayb qaataan mar labaad iyo mar saddexaad walaal dadkii muslimka hadaa dawladtiin hadaa sharaa'igtiin hadaa hawaatiin hadaa jooyatiin hadaa shacabtiin dhammaantiin waxaan ku codsanaa waxa kari karaysan ilaa keenta waxa kaloo aan mahadnaqaynaa dadkii ka qayb qaatay oo dhan waxa kaloo aan mahadnaqaynaa haweenka hibil oo saxaafadda ah oo ka qayb qaatay gurigan oo si meel intaas oo jeer oo barnaamij ka sii daayay waxaan leenahay gurigu waa dhow yahay intii uga hawsha badnayd baa hadhay iyo in deyna markaas waxaan leenahay kii ka qayb qaatanuna ku soo dar kii aan ka qayb qaadanuna ku soo biir khayraadka markaa walaal waxaan ugu baaqaynaa dee dadka muxsiniinta inay soo caawiyaan ninka maxamuud ayaa ka miir qaba runtii wuu dadaalay waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda maxamuud jaamac cali haddii aanu hawshaasi wala ka qayb qaateen may fududaateen runtii dadkii walaal intii hore daawanayay waa ogtihiin waxaan kaloo iyana aad ugu mahadnaqayaa telefishinka hawga cable TV oo ilaa maalintii balli caraale laga soo waraystay si xidhiidha u haya dadkaas xaaladday ku sugnaayeen dadka muxsiniinta waxaanu ka codsanaynaa inay soo caawiyaan oo dee gurigaa maran dee iyo 14 qof iyo wixii ay u baahnaa inay ka soo qayb qaataan sadaqadu fadliga ay leedahay aad u fara badan daraaddeed waxaa ka mid ah fadligeeda qofka calaamo wanaagsan bay u noqotaa markhaati waa maalinta qiyaamaha maalinka harka loo baahan yahay iyadaaba u hadhaynaysa xadiis musnad imaam axad ku sugan bisanadi saxiix cuqbat ibnu caamir warinaya rasuulku waxau yihi qof waliba maalinta qiyaamaha wuxuu harsanayaa harkiisa ilaa inta addoomaha la kala xukumayo arrinku waa adag qoraxdii baa la soo dhaweeyey qoraxdii fallaadhaheed halkaa ay nagu gubeen baaba la soo dhaweeyeyba biil qadarkii bay soo jirsatay dadku way wada qayliyeen way wada dhidideen laakiin kii sadaqada badnaa intee oo dallaayadood buu haystaa oo fallaadhaheeda ka celinaya